barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري. magacayga waa Arjun Jeeraan waxaan jiraa 19 sano. dadka oo kala duwan waxay haystaan nisbooyin kala sareeya oo xagga garashada iyo fahamka la xiriira. waxaan u maleynayaa kaliya in islaamku u yimid dadka leh fahamka aadka u sareeya. qofna ma awoodo inuu tacaaliintiisa iyo macnahooda u fahmo qaab sax ah. marka la barbar dhigo iskuulada, waxaan ula jeedaa dadku waxay galaan fasalada hore si ay u gaaraan fasalka 10aad, balse diinta islaamku waa fasalka 9aad oo kale. soo sax maaha inuu u yimid islaamku kaliya dadka ruux ahaan u horumarsan. walaalka su'aal wanaagsan buu na weydiiyey oo ah markaan isbarbar dhigayno dhammaan diimaha waxaan ogaanaynaa in islaamku leeyahay darajo aad u sarreeya. balse sida xaalku yahay iskuulada diimaha kale waxaa loo ekaysiin karaa fasalada hore, islaamka loo ekaysiin karo fasalada sare. arrintaas ma sax baa? waan kugu waafaqsanahay, haddana isla markaa kuguma waafaqsani. waan kugu waafaqsanahay in islaamku u yimid dadka ruux ahaan horumarsan, balse taa macnaheedu ma aha in dadka aan lahayn ruuxda horumarsan aysan suurtagal u ahayn in islaamka soo galaan. arrintaasi kuguma waafaqsani. sabab maxaa yeelay guud ahaan qof waliba iskuulka waa uu soo geli karaa. haddii uu galo iskuul ingiliishka lagu dhigo tusaale ahaan, waxa ugu horeeya ee uu baranayo waa alifbeetada luuqadaas. ka soo qaad inuu galay iskuul lagu dhigo ingiliishka, bilowgaba wuxuu baran doonaa alifbeetada a b c d e, sax? sidaa darteed diinta islaamka haddii qofku ruux ahaan horumarsaneen xitaa markuu iskuulka soo gelayo waxa ugu horeeya oo waajiba inuu raaco waa tawxiidka. bilowga luuqadda ingiliishka oo ah alifbeetada waxay u eg tahay tawxiidka marka laga hadlo diinta islaamka. tawxiid micnihiisu waa rumaynta hal ilaah oo keliya. sidaan horay u sheegayba markii walaalka singasinkaha uu weydiiyey su-aashiisa oo ku saabsaneed micnaha allah, kaasi waa fahamka asaasiga ah. isla asaaskaasi waxaa laga helayaa dhammaan diimaha kale, balse nasiib xumo dadkaasi waa hogaamiye diimeedkee ma doonayaan dadku inay arrintaasi raacaan. maxaa yeelay dadku hadday diinta raacaan markaasi madax diimeedka ayaa raaci doona. haddii dadkoo idil ay bilaabaan cibaadada hal ilaah oo keliya, hogaamiye diimeedkaasi wax nafci ah ma yeelanayaan oo ma noqonayaan dad u dhexeeya rabbi iyo dadka. dhammaan diimaha kale waxay leeyihiin waxaad u baahan tahay qof dhexdhexaadiya sida kitaab gablow ama gooro iyo wixii lamid a, balse diinteennu waxaas kaa dooni mayso. dhammaan diimaha waxay qabaan fariintaas asaasiga ah, waana islaamka. balse nasiib xumo hogaamiyaal diimeedku ma rabaan dadku inay arrintaasi ogaadaan. waxay doonayaan inay dadku ka fogaadaan ogaanshaha arrintaasi. maxaa yeelay haddii dadku iskuulka galaan doonistooda waxay u dhiibi doonaan allah. haddaad allah doonistaad u dhiibtana waxay la micno tahay inaad tahay muslim. sidaa darteed wax nafci ah ma yeelanayaan dhexdhexaadiyaashaasi. isla sidoo kale shaqadooda way ku khasaari doonaan. waa isla sababtaasi haddii kale dhammaan kutubta muqadaska ee diimaha iyadoo weliba la bedelay alle subxaanahu wa tacaala hal diin oo keliya ayuu dhammaan dadka u soo dejiyey. balse maritaankii waqtiga kutubta muqadaska way isbedelayeen. balse xitaa kutubtaasi haddii la bedelay oo wax lagu daray, waxna laga bedelay ama lagu ciyaaray, waxaad ogaanaysaa kutubtaasi wixii ka haray inay sidaan fariin ah keliyeelidda alle subxaanahu wa tacaala, in cibaadada sanamyadu ay xaaraan tahay, iyadoo la og yahay inay jiri karaan faqrooyin kale oo arrintaasi kasoo horjeeda. balse haddii aad baarto xaqiiqada arrintaas ayaad ogaan doontaa. sidaa darteed waxa aan oranayo isla waqtiga aad ogaanayso inuu jiro abuure, arrintaasina waa wax aan berri ka doodi doono anigoo tafaasiil badan ka bixinaya. markaasi ayaad ogaan doontaa hadafka laga leeyahay noloshan. markaasi ayaad heli doontaa in dhinaca ruuxda ama diintu ay tahay rumaynta hal ilaah oo keliya, waa allaha keliya ee mudan cibaadada. sidaa darteed qof waliba xitaa haddii uusan ahayn mid ruux ahaan horumarsan, isla waqtiga uu doonayo inuu u mahadceliyo abuuraha, waxaa waajiba inuu doonistiisa u dhiibo allah. shakhsi kasta oo doonistiisa u dhiiba allah waxaa laga soo qaadayaa inuu yahay qof muslima. waxaan rajaynayaa inaan su-aashaada ka jawaabay. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي
qofna